arinta la isku qalday wax weeyaan isku dhacay xuduudda iyo dadka la laayay dadka hadda la laayay waxay degan yihiin bartamaha deegaanka Oromada xindurta deegaanka Oromada ay degan yihiin shaqa kuma laha deegaanka Soomaalida xuduud meesha ugu dhow malaha 400 kilomitir buu jiraan xuduuda waligoodna dad deegaanka Soomaalida may arag waa dad generation halka ku noolaa weeyaan حتى اللغة ضد يقانا معها صوماليا لكن ليكو قوم بصوماليا ضد كان مر هراء ولا عنقبتي بيروه وحكوا على جماعة قطو حلوه على جماعة قطو مدة أفر بلاد شام بلاد كاركود ويسكو روسيين وبديين قارنا وبهسيين ضد كي بهسنا أنت الروسيين مركوا عبسدين نفتو ذا حريها بوليس كأي توجين مدة ودن بيسيجا ضد كهذا بل اللي هذا اللي حسوقي وضد كي حريها بوليس كديجان كأورما كسقنا عالم كويس فدي سأي نفتو ذو بدباديان دولة إثيوبيا إذا ما أدول لنا واي أوكتاي كدي واحد على ضد كمركي للي إلا وص حوالة أو حوالة بدن أو حوالة وضرات أنت لسميه أي الله واس ضد كاستراد ذو واي مسا ضد كهذا بارد واي صعطها جديا الله أساسي تيمن باجوجا goobaha dadka lagu laayay hadda ilaa hadda dadka la soo saaray ee xalal wadareedada laga soo saaray 64 ban ilaa hadda hubnaanagu laakiin way socotaa baaridu inta waxa dheer xalal wadareedyada dad meel kala duwan lagu laayay oo meel kala duwan ku dhintay baa jira oo iyagana tiradoodii la isku geynayo meel 4 meel 10 tirooyin saa ah meel kala yani saad sheegayso 60 way dhimatay dad badan oo baahsan oo meydana hadda way jiraan xilligan oo la dad gureynay miya dad baahsan oo la dad gureynay way jiraan tirada dhabta ah markay imato ayaan soo saaraynaa laakiin hadda shaqadii baa lagu guda jiraa dad la qabtay oo dadkii dilka ka dambeeyay oo ilaa hadda gacanta lagu dhigay ma jiraa ra'iisul wasaare wuxuu ka tacsiday dadka Soomaaliyeed dadkii halka lagu xasuuqay wuxuuna cadeeyay in loo saaray gudi baaridna lagu jiro cid kasta oo ka dambeysay حسوقنا شرعي اللي وركيني دور وانا لو جود الشرع إذن كم مركز دور كينو كحكومة ديجانهان وامحي أنا الدور كي وحويا إن جورمنو إن كهذا الله لبعض ضدك جودها كنول وايو أنا قبضت بدن إثيوبيانا نقول إحنا لون إلى علينا أون هينا إثيوبيانا قف كإثيوبيان كدستور كحكوية لمال كسر إثيوبيا كتالين كنول أنكر كل كأنه شقدان قبنا إن ضدك الصومالي ذا مال كسر كنول يودك إثيوبيا إن نبغيلان ضدك اللي حقوق ذي إن لهلا وضدك اللي يشرع إذا الله كأنه ويان شقدان كشقيني محا ضدك هذا حلوة اللي ضدك ولا لاي وضدك ورسول ساكتي مركب مستقبل كدو مستقبل فوق محا حالة وقعنتك هيسان أو هيسان كحكومة ديجانهان حالك وحويان دولة فدرالك يعني كوضع شقيننا أرنتنا أرن لو برتي معها لفيلي معها مدام أرن لفيلي هين ضد أنت اللي يقبل الله ينكره أما ضد ديجان كلا كل حنول أي أصلا الله حسوقي كرا مدام عن عد مسكحة كويس أي نشرين خضهم بحالك لقى فكري أنت النول وحيل جاي لا ضد كيد انتينا ضد كي لا سي شرعي قال له وركيني لا خضهم قرشي كشرنا ما لقى يا باين ونبدأ بضد كن كدعو والله جاي بعد كوان بيجو حريه بوليس كدح فديا عرور بيلاهين هوين بيلاهين بدواوين بيلاهين يجونا نقوليه وجوجين أو ماشي وقدم بيسيقف بلادنا كوبد بادلا وحريها هذا نبتقليها halkiina way halka lagu xasuuqay kolka wax garanti oo ka kale ee gurigiisa joogi uu ku badbaadi karaan oran karnaa ma jiro waxa jirta in hada khilaafaad badan jiro markii aad si aad noo sheegtayba labada deegaan ay ka wada shaqeeyaan hawl fiican oo walaalnimo oo tuulooyinka xataa la kala qaatay oo tuulooyinka la kala qortay laakiin haddana dilkiiba sii socda dad badan oo deegaanka Soomaalida u dhashayna waxay ku baahsan yihiin deegaanada Oromada sida Nagaylo kale halkan hadda aan ka sheekeynayo kale marka sideeba islaadahay xal waxaan dadkan u noqon karaa Tuubiyaanka dhanba isku dhaxbaasan Soomaalida deegaanada kale ku nooshahay Tuubiyaanka kale deegaanka Soomaalida ku nool yahay qaabkaas la isku dhaxnoolay wuxuu hal wadan weeyaan waxaan ka hadlaynay xalka in la keeno laga maarmaan bay noqonaysaa dawladda federaalka iyo deegaanadu xalka ma dambaysa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku dhawaaqay in arintan xalka ma dambaysa laga gaari doono cid waxaan fulisayna sharciga la horgeeyay doono taasna waa arin maaragtay deegaanka Oromada iyo Soomaalida iyo dawladda federaalka ay ka wada shaqeyn doonaan